fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarto si aad u hesho wararka ugu dambeeya ciyaaraha. Ha ilaabin inaad gambaleel ku furato si aad u noqoto qofka ugu horeeyo hela muuqaaladeena cusub. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين وعن ورقصن صاحبيال ميل وليبه ودعاء وعالم كجوجتان كسر ودا عاوية ورقة هو وين سبورتيغا وين كسر سوق دونا فاينال كا يوروب ليغا أو وحيا كدبنا باسمي دونا وان كسر يرسوق دونا يوحنا سوق هذا دونا أخبارات كي وجود بيع عيارها كاليبسي وحيابها عاول لقى غريو ليفربول iyo توتنهام فاينال ku Champions League oo wax badan caaw kaga sheegi doono safka Liverpool sheet kooba haya kuwa Tottenham ayaaba dhaama caaw baan ku sheegaya wali waxaan caaw soo qaadan doonaa qodobo kale aad u xiiso badan oo ay ku jiraan Jurgen Klopp waxa uu ka hadlay sida hadii uu ku faraxsan yahay hadii kale ciyaartooygiisa iyagoo sooman inay isu diyaariyaan Champions League finalkiisa iyagoo sooman ciyaari karaan ciyaarta iyo diinta islaamku wuxuu ka aaminsan yahay iyo qodobo kale aan ku soo qaadan doonaa caawa ciyaaraha oo ay ku jiraan xaaladda Griezmann ee Barcelona iyo tan Neymar Real oo ciyaartooy kale ku dhow kadib Hazard iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan baan ku soo qaadan doonaa caawa ciyaaraha bal warkiyo faahfaahsan ويايو عاو waxaan ognahay in dhamaanteen isu diyaarinayno finalka Europe League caawa ama koobka waa Arsenal loobaya ama waa Chelsea loobaya dadka qaar ee aan ciyaartan taageeraha u kala ahayn waxay iska daawan doonaan Chelsea iyo Arsenal kii maradu ka dhacda ayagu xanuun ma haya laakiin qaarkood waxay taageersan yihiin Arsenal qaarkoodna waxay taageersan yihiin kooxda Chelsea laakiin dhibaatadu iyo kaadiyowga iyo cabsida waxay haystaan kuwa Arsenal iyo kuwa Chelsea ilan korjoogtada kale ee aan labadan koox kala taageersaneen ama Arsenal hal la garaaco ama Chelsea hal la garaaco waxa kuma jirto waxay iska rabaan banooniga inay ku raaxaystaan qaarkood baa iska Arsenal aysan caawa qaarkood baa iska Chelsea aysan waxaan isiri inta laga gaaray ciyaarta waqti dheer baa ku jiray wariyamad iska sii ciimamadii wararka kooban oo ciyaaraha iyo kaliibsigu sidaas darteed ayaan waxaan u soo koobayaa akhbaaraad caawa ka warar waaweyn oo caawa suuqa saaran iyo warar kale oo muhiim ah waxaan isiri moogtahay war todobada saxda dhexe inta laga gaaray waqti dheer baa ku jira wariyaha ciyaarta ugu sii ciimamad baan isiri wararka kaayo walaalkii shaqo diyaar u yahay war ma qali jirtay kooxdan shaqo diyaar mu ahan nimankan shaqo ma raba ninkan shaqo ma rabiyo laakiin qadar shaqo diyaar u yahay iska tur ciimamada waxba yeena garab ku saarnaan waxaan rabaa caawa inaan wax badan horta kaaga sheekayo finalka Champions League kabtaas waa ka weyn tahay كاب يوروب ليج ما أهان كابتن وكاب إمام مدوا لكن إمام مدرس كلا كسي وين وحن ربعين واحد بدك هذا الشيء Champions League فاينل كيسة توتنهام ليفربول من حوجا ويركود ده هيا هرترك بدن ليفربول كترسن فاينل كي Champions League إيجا صومني عياران بالغ يابا ولو حلية ده غار هذا وقت يجي هولن هذا عيارتي أياكيس توتنهام حاجة كل عيارين عيارته مركي باللعبتي طبعا كهبين نمو مركي شلبي لا تدق عيار سعود تبي عيارتوجي صورنا الزياج إيو مسرابي صون كفرين وحلا يابا نقص بين وقت inuu halka isku mid yahay baa laga yaabaa waxa laga yaabaa ciyaartooy kamid ah qaar Liverpool ka tirsan sida Mane iyo Salah oo kale iyagoo sooman ciyaartiin ciyaaran baa suurtagal haddaba Klopp arintaas dib miyuu ku qabaa wareenin Klopp waa hadlaya ka waran Klopp ayaa si mustaxiil ugu jawaabay hadii uu ka murugsan yahay ama hadii aanu rabin ciyaartooygiis iyagoo sooman ciyaaran in kale wuxuu yiri ma taqaan isagoo hadlayay wax dhibaato kuma qabo yiri ciyaartooyga sooman way soonaan karaan buu yiri dhibaato kuma qabo waajibkooda ha gutaan soon ku leeyahay wuxuu yiri wax dhibaato kuma qabo ciyaartooyga sooman waan tixgelinayaa diintooda islaamka oo cad waan tixgelinayaa diintoodu markastana waxay ahaayeen kuwa cajiiba haday sooman yahay hadii kalaba raggan muslimiinta ee sooman haday soomayna si fiican u ciyaarayaan haday soomanay hatta si fiican bay u ciyaarayaan yiri nimankan waa niman qatar badan waxa jiro yiri maalmo ay Maxamed Salah iyo Mane waqti dambe ay yimaadaan qolka dharbadalashada maxay yeelay salaad ay dukanayeen anuna taas dhibaato kuma qowri maalmay naga soo daahan biro qolka labiskan oo ku jirna oo hawshin noo socotay gadaal ka yimaadaan kuma qabsan yiri maxay yeelay salaadoodii soo dukanayeen buu leeyahay dhan kalena wuxuu caday kamal daariga xataa inuu jiro waxyaabo ka muhiimsan Klopp nin qatar weeyaan annaga haddaan muslim nahay waxa ugu muhiimsan waxay tahay qofka muslimka inuu cibaadeysto oo diintiisa ku dhex jiro salaadiisa dukado soonkiisa uu soomo cibaadeysto xiligan oo kale waa kaye leelato waxa la raadinayaa habeenkii micnaha muhiimka ah baa la raadinayaa oo taajudka baa la dukanaya Klopp oo ka hadlay kubadda cagta inay jirto waxyaabo ka miisan marka qaar wuxuu yiri waxa jira waxyaabo badan oo aad ugu miisan kubadda cagta tusaalaan wuxuu kala jeedaa raggan diinta ay haystaan oo kale Maxamed Salah ee soomaya ee salaadaya marka hadalka Klopp wuxuu u dhignaa war ka waran baalri kuwa waa soomayeen wuxuu yiri wax dhibaato kuma qabo yiri ciyaartooyga sooman waan tixgelinayaa diintoodu markastana waxay ahaayeen kuwa cajiiba haday sooman yahay hadii kalaba waxa jira maalmo ay Maxamed Salah iyo Mane waqti dambe yimaadaan qolka dharbadalashadu maxaa yeelay salaad ay dukanayeen waxa jira waxyaabo badan oo aad ugu miisan kubadda cagta waan runtii
kubadda cagtu mararka qaar waxaa jira waxyaabo kubadda cagta ka wiisano sida cibaadada oo kale in la cibaadaysto la soomo la salaado wariyahay aan haddaanu saaxiibanahay aan ku dadaalno salaado adduunkan waa laga talay salaadeen aan dukano oo aan iska soonno cibaadaysano dhalinyaro baanu nahay waa inaan aakhiradeena meel dhiganaa saas aan yeelnaya waa kay kala cumada iska tuuray caawa wallahi kala cumadiisa caawa lama haysan kara ka war wiilasheeda inay soomayin baan ku faraxsanaa uu leeyahay hadday soomayin hadday sooneen xataa khatar weeyaan bur wiilasheeda salaaday tukadaan kuma qabsan uu leeyahay qolka dhabadashada imaadaan soo naga soo daahan buri maxay salaad bay ku soo daahan waxaana jiro waxyaabo ka muhiimsan kubadda cagtu yiri mararka qaar waxaa jira waxyaabo ka muhiimsan kubadda cagta waana runtii waa ka cibaadada ay qayb ka tahay diinteena islaamku aad u muhiimsan ba qalab wallahi aan caawa cimaamadiisu garabka lagu haysan karin ba marka wuxuu leeyahay wiilasheedu diyaar bay yihiin iyagoo sooman bayna ciyaarayaan diintooda inuusan ku haysan buu cadeynaya macna uu taageersan yahay diintooda iyo waxay aaminsan yihiin isla finalka kan Euro Champions League Harry Kane iyo ciyaartoy kale oo dhaawacna oo Tottenham ka dhaawacna ayaa la cadeeyay inay safri doonaan Tottenham ayaa hadda xaqiijisay Harry Kane inuu safarayo halka lagu ciyaarayo Madrid finalka Champions League waxa la cadeeyay inuu diyaar yahay marka Harry Kane la iskuma haysto ciyaartoyga safray uu ku jira warkaas wuu cad yahay Liverpool ay Harry Kane ku tasho hadhowaadan dhahayn kan waa dhaawacna ma dhahaynino ninkan diyaar waa safraya bal cadeeyay oo caaw waxaan ka hadlaynaa safafka Liverpool iyo Tottenham safkay shiidsan dhanka koobka safka Liverpool waxay haystaan koob ka yar intay haystaan kuwa Tottenham safka Liverpool shiida dilay ciyaartooyga Liverpool koobkay ka shiidsan yihiin waajisay labada kooxood finalku ciyaarayna waa laba kooxood oo abaaran oo koobka ka abaaran maxay labadooda koox waa shiidsan yihiin Tottenham markii ugu dambeysay ee koob qaado waxay sanadii 2008 bay ahayd markaasna Chelsea ay ka qaadeen halka Liverpool markii ugu dambeysay koob qaaday ahayd 2012 tan iyo markaas Liverpool koob ma ayna arkin tan koob ma aynu arkin Tottenham tan iyo 2008 waa laba kooxood oo abaaran oo shiid ah midowna shiidka ku sii socon doono dhanka koobka ah midna 2008 koob ugu dambeysay Tottenham midna 2012 ugu dambeysay Liverpool ah haddaba haddii aan u eegno safafka labada dhinac ay haystaan kooxde ayaa koob badan haysata yacni ciyaartooyga labada dhinac u ciyaaraya waa safkee ayaa dhinac badan ama koob badan haysta tusaale ahaan safka Tottenham ayaa 15 koob ka sareeya kuwa Liverpool tusaale ahaan ciyaartooyga lagu magacaabo Tottenham waxay shaxdooda ka kooban tahay dhowrka ciyaarey ka kooban waxay haystaan 52 koob oo ay soo ku soo guuleysteen laakiin midna ma aynu la qaadin Tottenham marka safka Tottenham waxay haystaan 52 koob ay haystaano ama kooxo kale ha ku soo qaadan laakiin kooxda Tottenham labadaas koob ay haystaan shaxda Tottenham ma aynu ku qaadin Tottenham halka Liverpool ciyaartoygooda marka la isku soo darda ay haystaan iyana 37 koob 10 kamida koobkaas waxa iska leh aw Shardan Shaqiri isaga iyo Danny Sturridge ayaana ah labada ciyaariyahan ee koobkan ku guuleystay Champions League laakiin finaal ma aynu ciyaarin Alberto Moreno ayaa ah ciyaariyahan ciyaaray finalka Europa League ama ku haddana ku guuleystay oo yacni final ciyaaray muhiimadda aan ka hadlay waxay tahay labadan saf maadaama ay ciyaari doonaan koob weyn kuwee ayaa Champions League haysta kuwee ayaana koob badan Champions League safka Tottenham Liverpool waxa ku jira Sturridge iyo ninka la yiraahdo Shaqiri labadoodu Champions League way haystaan laakiin finalkaas ma aynu ciyaarin oo keed bay ka ahaayeen laakiin safka Tottenham isku darkoodu waxay haystaan 52 koob halka safka Liverpool ay haystaan 37 koob 10 kamida koobkaas waxa iska leh Master Shaqiri koobka aan ku hadlayo ma ahan koob ay ku qaadeen kooxdan ma ahan ciyaariyahan walba koob ayuu haystaa marka waxa la isku darayaa hadda Tottenham oo kale ninka ugu koobka badan waa ninka la yiraahdo Lucas Moura ninka Lucas Moura 12 koob ayuu haystaa marka labada qoliyo finaalku ciyaaraya Tottenham ayaa ka koob badan kuwa Liverpool ciyaartooyga Tottenham koobka ay haystaan ayaa ka badan marka kuwa Liverpool 15 koob bayna ka sareeyaan kuwan Tottenham safkoodu waxay haystaan koob gaaraya 52 koob halka kuwa Liverpool ay haystaan 37 koob marka safka Tottenham u ciyaara waa niman soo raaxaysto koob soo daldashay kuwan waa wali abaaran yihiin laakiin labada kooxood ee ciyaaraya inkaara haysato koob ma qaadaan koobkan madaxa ku dugsan oo inkaartan ugu baxan laakiin saf ahaan haddaan ugu hadlno waxa qaalisan safka kooxda kubadda cagta Liverpool safka Liverpool ciyaartan u ciyaari doona finalka wuxuu ku fadhiyaa lacag dhan 331.5 milyan halka safka Tottenham uu ku fadhiya kaliya 129.5 milyan marka safka Liverpool ayaa lacag badan ku fadhiya waa lacagii lagu soo iibsaday oo uu ciyaartooy kasta ku fadhiyo maana oo la weydiiyay hadii Madrid uu ku biirayo iyo doondoonista Madrid ay doondoonayso wuxuu yiri waa waxa loogu farxo in koox Madrid oo kale ay ku doonayso yiri laakiin haylooyin buu Liverpool uu leeyahay anagu waxaanu garaacnaa kooxaha waaweyn buu leeyahay sida Barcelona baa ku jirta malaha meesha wuxuu leeyahay waan ku faraxsanahay Madrid oo kale in iraadayso laakiin anagu Liverpool baan haysanaa Liverpool shaas oo kuwa kooxaha weyn garaacay marada karida markii ugu dambeysay Barcelona karida
Harry Maguire ayaa ka hadlay wararka sheegaya inuu Man City United midkood uu ku biiri doono waxaanu Harry Maguire uu cadeeyay inaanu ka hadlayn hadda mustaqbalkiisa wuxuuna sheegay inuu soo gudanayo waajibaadkiisa xulka ka qayb galaya tartanka UEFA Nations League ciyaartoogii hore ee Barcelona Rivaldo ayaa ugu baaqay Barcelona inay la soo wareegto ciyaartooga Neymar si ay mar kale dib ugu guuleystaan ciyaaraha Champions League Rivaldo oo Barcelona u soo ciyaaray 97 ilaa 2002 kuna guuleystay laba jeer La Liga iyo Del Rey ayaa qaba in Neymar ay Barcelona soo celisay ka caawin karto Barcelona inay ku guuleysto Champions League Barcelona mar kale Neymar bay doonaysaa isla arimaha kooxda Barcelona hadii ay waayaan ciyaartooga ay raadinayaan yaani ciyaartooy badan bay weerar bay raadinayaan booska Suarez waa lagu weeraray Suarez waa caluuko waxa weeyaan aad buu caylay hadii wariya caluuka tahay waan caysh dil ilaa Messi laga kala baqa ilaa Messi saaxiib leeyahay odagu saaxiibkiisa wax ma la dhihi karo sidaas daraadeed Barcelona waxay isku dayaysaa in la weeriyaan qatar badan ay kaysato midkood waxa kamid ah Rodrigo Moreno oo ninka Faransiis u ciyaara habeen dhaweed gool labaad Barcelona ka dhaliyay iyo waliba Cristiano Ronaldo oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee Girona labadaas weeriyaan baad la xirinaya hadii ku guul dareystaan Griezmann isla caawa arimaha Griezmann ka cusub Griezmann waxay warar ku leeyihiin wuxuu ka cariisan yahay Leo Messi ciyaartooga Barcelona ee diidayay inuu soo kooxda Barcelona ku soo biiro Griezmann uu ka war helay la yiri ciyaartooga Barcelona inay diideen isagoo kooxda yimaado maxay ciyaartooga Barcelona waxay ka cariisan yihiin Griezmann xagaga hore isagoo Barcelona la sii gaaray ayuu iska diiday Barcelona ku biro wuxuuna sii jooga Atletico Madrid wuxuuna Griezmann maqlay wararka sheegaya in ciyaartooga Barcelona ay diideen Griezmann uu yimaado waxaanu Griezmann warkan uu ka helay majaladaha qaar ee ka soo baxa magaalada Barcelona iyo qaar kamid ah ciyaartooga Faransiiska ee Barcelona jooga ayuu warkaas ka ogaaday baa la yiri in ciyaartooga Messi kuwa kale ay diideen inuu isagu yimaado macnaheedu Griezmann waa ka cariisan yahay baa leeyahay isagoo Barcelona ba ku soo biirin in ciyaartooga Barcelona ay leeyihiin nagu soo biirin Griezmann marka kuma faraxsana ragii waaweynaa ee kooxda inay yiraahdaan ma nagu soo biiray Anton marka wuxuu dareemay rajadiisa ah inuu kaamnu ku biiro inay sii dhamaanayso Anton Griezmann xataa warka wuxuu u sii kala cadaaday shirkii jaraad ugu dambeeyay BK iyo Messi ka hadlayeen Del Rey markaas oo labada ciyaaryahan ay si fiican ugu hadleen imaanshaha Griezmann mar wax la weydiiyay mar Griezmann wuxuu ka cariisan yahay leeyahay ciyaartooga Barcelona isagoo aan ba ku soo biirin kooxda inay sii diideen inuu kooxda yimaado wuxuuna arrinkaas ka ogaaday ciyaaryahanada Faransiiska Wariya Cusmaanow wariya Dembele Umtiti oo saaxiibayaal run halay sheegay iyo Linglet warnimanku way diidayaan miyaa mise waxaas maxaa ka jira warnimanku waa ku diidayaan warkaas uu helay baa leeyahay Griezmann oo ah ciyaartooga Barcelona inay diideen inuu kooxdu yimaado Griezmann markuu waa cariisay yahay warago kibirka waa lagu kufaa Barcelona adaaba dad u baahan maxaa kibirku gelina adaaba xaalkaaga Ilaahay isku ogay 2 sano saan marada kaaga dhacaysa wariya Griezmann doonta jooga wax Griezmann ka fiican meelaha ma joogaani rago kibirka waa lagu kufaa kibirka iska dhaafa Barcelona ninkii ay idin raba ninkii aad ka sii xanaajinaysaan bad waxaad leediin naguma soo biirayo marabnaad ku haysaan arimaha kale Arsenal waxay wararku ay leeyihiin waxay doonayaan ciyaartooga Mario Götze oo u ciyaara kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund Reina oo ah goolhayo Liverpool wuxuu leeyahay Liverpool waa loo cadaalad falay kubadda cagta baa cadaalad u fashay hadii Premier League laga qaaday iyagoo 97 dhibcood kaystay hadana Champions League laga soo reebay ceeb ay ku noqon lahayd kubadda cagta ayaa marka u cimaamaday buu leeyahay Liverpool hadii horyaalku laga qaaday inuu final bay Champions League ka joogaan nasiib dari cadaalad dari ku noqon lahayd buu hadii Liverpool labada koob ay way lahayd Rosna wuxuu leeyahay marnaba fileen buu Tottenham inay ciyaari doonto finalka Champions League wararka waxay sheegayaan ciyaartooga Ferland Mendy oo u ciyaara kooxda Lyon uu qarka u saaran yahay kooxda kubadda cagta Real Madrid iyadoo maanta ay soo baxday Hazard inay heshiis la sii gaartay Madrid haddana ciyaartooga Lyon ee Ferland Mendy ay qarka u saaran inay la wareegaan oo dambeedka bidix ka ciyaara caawiyado Tottenham ay ciyaarayaan Arsenal iyo nimanka Chelsea raado maanta waxa mar hore idin sheegay in dagaal u dhexmaray ciyaartooga David Luiz iyo Higuain Chelsea ka wada tirsan tababarka soo dagaaleen taasoo ka cariisay xataa ninkii Zari ahaa marka waxa hadda soo baxaya muuqaalka ay dib loo sii arkay waxaana dagaal ka dambeeyay markii ciyaartooga Luiz si ula kac ah u xusul ku dhuftay ninka la yiraahdo Higuain kubadda ayaa waxa la dareemayay Higuain kubaddu raacay laakiin Luis la arkay isagoo xusul ku dhufanaya taas waxay keentay inuu Zari caroodo oo uu yiraahdo war annaga intayna haysataayo ma tookaad noogu dareysaan yaani annaga ba Arsenal noo bootaynaysayo si dabaldegaysa ma dagaalaysa idigu noogu sii dareysa mid kale waa kay Luis ba feer ku dhufanaya xusul ku dhufanaya Higuain Ramos inuu ka tagay Madrid waa wax aad loo og yahay inuu baxna waa suurtagal haday dhacdana midaasna oo la yiraahdo Ramos waa baxay habeensan oo Madrid inay fasaxday doonaysa lacag bayna ku rabaan waxay noqon doontaa bal leeyahay wax la yaabna ma noqon doonto inuu Ramos kooxda Madrid ka tago isagoo si xun ku baxaya hore Madrid iyagoo si xun waxay u direen oo ceeb waxay ku direen ku fasaxeen Raúl González oo legend aha Carcassius oo legend aha Cristiano Ronaldo legend aha ciyaartooygaas dhan waxay Madrid ugu tageen iyagoo kooxda iyagoo isdagaalsan si fiican oo qaab wanaagsan laguma fasaxin dagaal bay ku kala tagi jireen Madrid labana macsalaameyn jirno wanaagsan looma fasixi jirin haddana Ramos wuxuu ku biiri doonaa liiska kaayo Madrid waligood ba sidaa bay ahayd baa leeyahay
waxaana ciyaartooyga ka Raúl Casillas iyo Cristiano Ronaldo ay muujiyeen in Madrid kadib nolol ay jirto yacni haddii Madrid laga tago in la noolaan kara bay muujiyeen haddana Ramos baa bixi doona ugu wuxuu noqon doona ma noqon doona bari ciyaaryahankii ugu horeeyay weyn ee Madrid ugu taga iyadoo la isdagaalsan yahay hadda Ramos madaxweyne isku dhacsiin dagaalkooda dartood bani ku baxayaan Ronaldo iyo ninkan Ramos Ronaldo iyo madaxweynuhu iyagoo cariisan bay kala tageen waxa la ceeb ma ahna waa caadada Madrid ciyaartooygooda waa weyn ila jintiyada qaabkan xun in kooxda ugu diraan caawa waa la ciyaaraya finalko ugu 2009 Istanbul maxaa ka dhacay Willian ayaa garaacay Shakhtar Willian oo Shakhtar ayaa garaacay Mesut Ozil oo ka tirsan Werder Bremen waxaana Ozil laga qaaday marka UEFA Cup-ka finalkiisa caawana Willian iyo Ozil mar kale isayaano ugu 2009 Istanbul bay ku kulmeeno marka uu finalka UEFA Cup-ka la ciyaaray habeenka William kooxdiisa ayaa garaacday Ozil kooxdiisa bal caawana cid la garaac wararkii doona Ozil iyo Willian koobkana laga qaad dhan kalena gool haye Jack ayaa caawa nasiib u yeelanaya kooxdii uu soo ciyaaraya muddo 12 sano oo Chelsea uuna la qaaday 13 koob inuu ku soo gabagabay waayihiisa ciyaareed isagoo kooxdiisa hore ka hor imaanaya kuwa uu xilka qaban doono